gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee dhaqaalaha iyo maaliyadda urur siyaasadeedka ka ah xildhibaan maxamed jaamac libaan iyo sidoo kale xildhibaan mubaarak xuseen maxamed mubaarak xeldheere oo isna ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada somalilan wakhtigana ku abtirsada isla urur siyaasadeedka ka ah ayaa maanta waxay ka qayb galeen munaasabad ballaadhan oo loo sameeyey 39 arday oo noqonaya dufcaddii saddexaad ee ka qalin qolata dugsiga hoyga ee dabeelweyne ee degmada madheere ee gobolka saaxil sanad dugsiyadka 2022 isla markaasina ay gacanta ku hayso guddiga dan iyo duco ayaa waxay labadan xildhibaan halkaasi ay si rasmiya kaga dhawaaqeen deeq kombiyuutar ah oo loogu talagalay labada dugsi sare ee kala ah dabeelweyne iyo sidoo kale sarwa sabaax sidoo kalena waxay sheegeen labadan xildhibaan inay qaadanayaan 4 arday oo ay siinayaan deeq waxbarasho wixii deeqaanu qaadanay aniga xildhibaanka kale maxaa jacliban annagoo ka tirsan urur siyaasadeedka ka ayaanu qaadanay waxaanu sidnaa maanta inta ku bishaareynayna kombiyuutaradii deeq kombiyuutar ah oo muxuu ahaaye hordhicii ugu horreeyey ee aanu keenno annagoo ka tirsan urur siyaasadeedka ka waxaana rajaynaya inta golaa joogno inana halkaa kaga hadlayna muxuu ahaaye haddaanu ururkeegaasina u soo baxo nala soo saartaan oo muxuu ahaaye aadna gaadhsiisaan xukuumad reer saaxilow inaanu muxuu ahaaye iskuullada fooqa ka dhigi doono waxyaabo badan ay talayaanna aanu samayn doono laakiin waxaasoo dhan waxay ku xidhan yihiin inaadna gacan qabataan oo maxay jaranjarada koowaadna soo dhaafisaanee muxuu ahaaye kunka la iska doonayo ilmaa adeerayaal waxaan leeyahay reer saaxilow maanta waanu idin saan tagnaye ceelayaa nagu raaca waa mahadsantihi wareyn markaan halkan kaalintan ka gelino ka yimaado horta golaha wakiiladu waa golo advocacy ah oo dee looyarona isagu fulin ma aha sistamada si kale uga qayb qaataa dadban wax badan oo ka mid ah horumarka qaranka iyadana waxaan mar labaad waliba ku noqonayaa dalladii dan iyo duco oo iyaduna ku howlan iskuuladan oo ah midhihii ay soo saartay shirarka reeraha iyo qabyaaladdu marka la yiraahdo lafteeda marka xagga horumarka loo qaado midhaha wanaagsan bay leedahay lafteeda marka lagu tartamo marka shirarka reeraha iyo qabyaaladda waxaan leeyahay lafteeda hal la geliyo xagga waxtarka ay u leedahay oo ah timeka joogna maanta midhaheedii horumarka 10 sano ka hor ama 12 sano ka hor shirkii dan iyo duco wasiirkeena nagu tunka weyn wasiir Saacid Cali Shiro shirkaad joogayna ilaa maanta inoo joogo wasiirino yahay oo soo garab taagnaa dhinaca waxa qabadka waxay nagu weyn 3 meelood horta waa golaha deegaanka oo fulin ah oo iyagu waa fulino dhaqaalay degmada inoo hayaano way tiro way qaateen wax horena way qaban jireen laakiin waxaan leenahay sida dhaqaalaha iyo horumarka magaalada uu kordhayo iskuuladana waxay u baahan yihiin in la kordhaano sanad walba wixii cidii wax tari jirtay in wixii sii kordhiso si iskuulka lafteeda horumarkiisuna uu kordho wasiirka maaliyadda isagana waxay gacan bay ku lahaayeen dawladda dhexe oo wasaaradda waxbarashadu ka mid tahay sanadkii hore hoos u dhac baa jiray maantana way nala fadhiyaa inkastoo wasaaradda waxbarashada khusayso haddana go'aanku wuxuu soo maraa marka dambe wasaaradda maaliyadda wixii iskuullada ka dhacay horta u soo noqdaan baan leenahay halkii kordhin ka suganayna sanadkan dekedeeni inoo maamusha hay'adda DB Wall ayaa ugu weyn gobolkan waana ay ku mahadsan yihiin horumar ballaaran bay sameeyeen horumarka dekeda iyo kooridoorka iyo gobolka ka muuqda isaga laftiisa waxaan doonaynaa in iyagana DB Wall ku xasuusinayna ku dhiirigelinaa inay iskuuladana laftoodu qayb ka ahaadaan oo iskuuladu dekedii hore ay la wareegtay wixii systemka ugu jiray ay DB Wall ugu timi intii un baan anigu ogaalkay ku ogaa in iskuulada siiso laakiin horumarka ka dekeda la timi lafteedii ayaa ahayd in sanad walbana wax badan ugu kordhiso ardaydana ka qayb qaadato DB Wall marka ku soo dhawaada anigu ka xildhibaan ahaan laba xildhibaan kan ku fadhino labada iskuul 4 arday scholarship aan insha Allah qaadanayna oo iyagana ay ka qayb gali doonaan scholarship kan maanta Fantastic Television Ariel Hargeysa